waa sanad guuradii 19 oo ka soo wareegtay xorriyaddii Soomaaliya iyo madayntii labada gobol ee Soomaaliya iyo iyadoo ah usbuucii xorriyadda Soomaaliyeed laga soo bilaabo 26 Juun oo ahayd gobolada waqooyi Soomaaliya 27 Juun oo ah xorriyaddii markay ay qaadatay jamhuuriyadda Djibouti walaalahan nahay iyo 1 Luulyo oo ahayd isku darkii labada gobol ee Soomaaliya koonfur iyo waqooyi halkan waxaan uga dirayaa hambalyo ummadda Soomaaliyeed oo ku magac tirsata magaca Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan oo ah ciid iyo farxad iyo rayn u ah waxaan xusuustaa macnihii markii Soomaaliya uu ka dhacay burburkii iyo dagaalkii sukeeye waxay ahayd xalay toole sida laga qaray meel kastaba annagana aan aragnay markii ugu horeysay oo Soomaaliya ay xaflad intaas oo kale la eg ay u dhigtay 1 Luulyo ay u dhigtay ma hadda waxa iska leh muxuu ahaa ay sheeg xukuumadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed uu hogaaminayo madaxweynaheena Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo prime ministerkeena Xasan Khayre marka iyo intii maanta muxuu ahaa iyo aqalkeena labadana aqal baarlamaanka oo maanta ay u suurta gashay in xaflad intaa oo kale ay qabtaan marka ma sha Allah Soomaaliyeedna waan u hambaleynayaa in alla intii muxuu ahaa maanta muxuu ahaa isha dhibaato qabtan waxaan Ilaahay uga rajaynayaa in dhibaatada Ilaahay ka saaro intii maanta muxuu ahaa isha waqtigooda dhamaadayna in Ilaahay uu sii cafi iyo muxuu ahaa isha Allah u naxariisto inta noolna maanta inay dantooda gartaan wadankooda u shaqeeyaan yani waxa Soomaalidu waxay tiraahdaa far kaliya fool ma dhaqdo wadanna waxa weeye in la yiraahdo adiga ka mas'uulay adiga ka madaxa adiga muxuu ahaa isha mansabka maanta jooga adiga ay ku saaran tahay adduunyada kuma socoto waa wax la wada leeyahay wax la wada qabanayo marka nin walba inuu geestiisa ka qabto insha Allah waxaan rajaynayaa Soomaalida in Ilaahay calooshooda isu soo furo nabadgelyo xasilooni iyo horumar ayaan maanta ugu duceynayaa insha Allah halkan oo maanta aniga aan muxuu ahaa aan wakiil uga ahay dawladda Soomaaliyeed jamhuuriyadda Djibouti mahad weyn baan u celinayaa qaybtooda ay ka qaateen ilaa muxuu ahaa isha burburkii Soomaaliya oo ay qaybta ay ka qaateen dadaalkii wax qabadkii soo dhaweyntii iyo xitaa muxuu ahaa isha soo dhaweyntii ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad baan muxuu ahaa isha aan ugu hambaleynayaa waxaan si gaar ugu hambaleynayaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo iska saaray xil gaar ah Soomaali maanta ilaa waqtiga hadda la joogay waxay u baahnayd hiil bay u baahnayd marka hiilkii maanta laga filayay jamhuuriyadda Djibouti uu hogaaminayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxaan filayaa in hiil muxuu ahaa ka duwan hiiladii Soomaaliya loogu hiiliyay mid ka duwan in ayaguna muxuu ahaa maanta ay qabteen oo ay tahay inay dhiigooda ku hiiliyaan oo maanta dhiigooda wiilashoodii gabdhahoodii ay maanta Soomaaliya u dhimanayaan marka taa waxa weeye waa hiil muxuu ahaa dhiig lagu